السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحي أرمها لجدبون أرضيجا سنة كجوه رأي جامعة. وأنا محي أرمها لجبهنها أرضيجا إنه دقن جليو كهر أنت أوصل بلا من جامعة. الضبهال كان وحنكسو جدبين دونا تضبط قضب كواسو أرضيجا كعوين كره إنه صدق سأولق بصده جامعة. الضبكسو الدوالة داود يال 10 كنا مانتا. ardaygu marka uu ka soo gudbo marxaladii dugsiga sare waxa uu soo gudbayaa heerka jaamacadda sidaas awgeed way yadhahay inuu ardaygu la kulmi waayo wax caqabad ah macnaha waa wax dhif iyo naadir ah inuu ardaygu la kulmi waayo wax caqabad ah oo ka soo wajaha jaamacadda sanadka ugu horeeya ee uu bilaabayo sidaas awgeed ardaydu intooda badan waxay sameeyaan waxay la tashtaan ardaydii ka horeysay ee soo dhigtay jaamacadda ama ardayda hadda ku jira jaamacadda ee heerka dhexe maraysa sidaas darteed waxa halkan ku soo gudbin doonaa 7 qodob kuwaas oo ka yareyn kara ama ka khafiifin kara culayska ardayga bilaabaya jaamacadda qodobka koowaad barashada deegaanka jaamacadda ku hareeraysan ardayga waxa muhiim u ah in uu barto deegaanka ku hareeraysan jaamacadda uu dhiganayo وهذه وصن دجاج جرنين جوابها أمي مثلا لجدني أرض يقولوا يقانو أما وبرتوحة وياه مكتبتها ملها وحلو ضبعه كله ملها كل دوان وحلو آخر السوق كله كم عدو ملك كل دوان وحلو آخر السلة صادرت ملها سنوائنه مع برتاح إذا تروح كم إذا حفيز كمامل كم عدو ليه أو كله أرض وبه هناك أو كله كواس كله وإنه سبعا وبرتاح سو مرك وبهذا وسيد بيرو هلو طبقا لبعض حويه وقاريريد أسبوع أهرية جامعة إنه أرضي فهمه واقع عصب يا مرحلة علمية وأرضي صقري أرضي مركو هريس وجامعة بلابيو وحو كوريري كراه قابك 10 أسعدان قابك أي معلمين توحو شرح يانو كري صادرتيد هذه أي صورة قال أطهي أرضي إنه معلمين تمادين كأوديك 10 جامعة inuu si gargaar ah ula kulmo ama uu wax uun ka weydiiyo maadooyinka ay dhigaan iyo qaabka u sharaxaan iyo wax ardayga dhiganaya maadooyinkooda looga baahan yahay waa inuu saas sameeyaa sidoo kale waxa fiican in uu raadiyo oo uu barto ardadii ka qalin jibisay ama ardada dhiganaysa ee ka heer sareysa ee kuleedada dhiganaya ee ka heer sareysa inuu wax ka weydiiyo inuu xog iyo macluumaad uu ka raadsado ardadaas si ay xogta ay siinayaan ugu anfacdo inuu ardaygu si dhib yar ula qabsado جامعة قضب كصدحات جوكتينتا حاضرتان كحيصده أرضيو جوكتينتا أو جوكتيو حاضرتان كحيصده أو صو حاضريو waxay muhiim u tahay inuu ardaygu la socdo casharada uu macalinku dhigay ama uu dhigayo leeliga uu bixinayo iyo inuu ardaygu ka qayb qaato su'aalaha ay ardaydu weydiinayaan macalinka inta ay socoto xiisadu macalinkuna يا أرضيدو أما عنك يا أرضيدو وحي وذاقيان أما كمنا قشونيان سؤال مهم عشر لقاضان يا مالنتاس صادرت أرضيدو هادو سنشوجين أو كم قية هاي 10 كاس وحين نقول سائنا يدافت حب مهم صادرت وحف عن إن أرضيدو شوكتيو إنه صح هذا الرحيصها جامعة طبعا أفراد وحنا نقول يا نظامين توقتك النشاط أو لحية حيصها هذه أرضيدو وسنشرين وح ليلي وكشقين يوه waxa fiican in uu dibad u baxo oo soo jawi bedesho si uu soo noqdo xiisada ku xigta isagoo firfircooni dareemaya qodobka shanaad go'aaminta xilliga hurdada ka hor intaadan bilaabin jaamacadda go'aaminta uu ardaygu go'aamiyo xilliga uu seexanayo xilliga uu soo toosayo waxay ka caawinaysaa ardayga in uu ilaaliyo waqtiga jaamacadda uu aadi lahaa si uu soo dabdicin xiisadaha uu qaadanayay sidoo kale waxay ka caawinaysaa ku dhaqanka jadwalka jaamacadda iyo inuu xiisadaha soo xaadiro isagoo dareemaya firfircooni saayid ah qodobka lixaad waxa weeye baaritaanka casharada adoo adeegsanaya internetka ama maktabadaha ardayga markuu jaamacadda dhiganayo waxa khasab ku ah in uu baaritaano qoto dheer uu ku sameeyo casharada uu soo qaatay ama ka raadiyo internetka ama maktabadaha
qodobka toddobaad ee ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ka qayb qaadashada ardaygu ka qayb qaato ilaha cilmiga laga helo. ardaygu waa in uusan ku koobnaan casharada iyo maadooyinka uu ka qaadanayo jaamacadda. waa in uu nafti ahaantiisa raadsadaa koorsooyin uu ka baran karo culum fara badan. sidoo kale waa in uu kordhiyaa xirfadihiisa aqooneed si ay u kabaan aqoontiisa. sidoo kale waxaa fiican in uu ardaygu ka qayb qaato muxaadarooyinka kale ilaha cilmiga laga helo, sida muxaadarooyinka, nadwooyinka la qabanayo masaajidda ka dhacayo kale. sidoo kale daraasadaha diiniga ah ama kuwa fikirka ah iyo culumta kale ardayga kor u qaadaysa heerkiisa aqooneed. sidoo kale ardaygu ka qayb qaadashada uu sameynayo uu ka qayb qaadanayo ilaha cilmiga laga helo waxay ka anfacaysaa firfircooni gelinta naftiisa, in ay ilahaasi firfircooni geliyaan naftiisa iyo hididiile ay u sameeyaan. ardaygu kama caajisayo inuu waxbarashadiisa sii wato, laakiin ardaygu hadduu ku koobnaado casharada jaamacadda wuu ku caajisaya ardaygu. laakiin nadwooyinka uu ka qaybgalayo, koorsooyinka kala duwan uu dhiganayo, xirfadooyinka kala duwan uu baranayo ba waxay ka anfacaysaa inuusan caajisin. sababta way kala duwan yihiin. qofka bini'aadamka hal shay uu ku caajisaya, laakiin arrimeelo badan hadduu cilmi ka helayo oo wax ka baranayo si uu ku caajiso way adag tahay. sidoo kale goobahaas uu ka qaybgalaya waxay ka anfici karaa inuu barto asxaab cusub, kuwaas oo wax kala faa'iidi karaan. aqoon iyo cilmi kala faa'iidina ardadu waxbay isku faa'iideynayaan. mid walba kuliyad gaar oo dhigto waa dhici kara hadhow xogtaas iyo waxaas macluumaadkaas kala wadaagi karaan. waxaa dhici kara ardaygu meel u yaqaano inuu kuu sheego ama koorsooyin gaar ah uu dhigto inuu mataqaanaa ku dhow kusoo biir oo kale, kuwaas anfac bay leeyihin, waxtar bay leeyihin, inuu kula wadaagaa dhici kara. saa darteed waxay faa'iido u tahay in aad asxaab cusub oo mataqaanaa xagga cilmiga iyo mataqaanaa xagga aqoonta kaa taageera ama kula wadaaga aqoonta ay leeyihiin aad heshid bay ka anfacaysaa. sidoo kale waxay fursad kuu siinaysaa in ardaygu aad soo bandhigto aqoontaada, hibada aad u leedahay aqoontaada. haddaad mataqaanaa suugaanta ku fiican tahay, haddaad mataqaanaa xagga hadalka iyo ku hadalka ku fiican tahay, iyo xagga hadday tahay culumta kale aad ku fiican tahay, xagga diinta haddaad noqoto oo kale, waxaasoo dhan ayay mataqaanaa inaad soo bandhigto aqoontaada oo aad dadka u faa'iidaysid ayay ka anfacaysaa.